Asalaamu calaykum kusoo dhawo Dalbac Technology Center. Channelka dadka cusub tahay subscribe ku samee furana beelka si aanay ku dhaafin casharada dambe insha Allah. Bismillaahi raxmaani raxiim. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan subscriberska ku xidhan Dalbac Technology Center waa aniga Farxaan Dalbac oo jecel in waxa kan idinku soo gudbiyo episode kale oo kamid ah xalqadihii aynu hay'adda qaybta YouTube-ka Dalbac Technology Center insha Allah soo dhigi jirnay. insha Allah casharadeennu waxay u badan yihiin waa qaab waxaan inta badan u sameynaa random waxa weeyaan maalinba yacni hal mawduuc kuma koobni. fiidiyoyadan soo dhigaa mar editing baan galaa, mar games baan galaa, mar maxay ahayday abiska kale ee faa'iidada lan galaa. marka qaab random ayaan wax wadnaa. marka insha Allah maanta waxaan doonayaa idin la wadaago appkan oo la yiraahdo Malwarebytes. kolley intiina maxay ahayday aad u isticmaasha PC-ga ama personal computer-ka way fahmayaan Malwarebytes waa anti malware weeyaan, antivirus maaha, waa anti malware dhammaantii weeyaan. oo isagoo weyn waxaa jira PC-ga lagu isticmaalo yani antivirus. insha Allah antivirus kale ka hadli doonaa, laakiin kan waa Malwarebytes baa la yiraahdaa. Google Play Store kan ka heleysaa ku qorto Malwarebytes antivirus qaab noocaas kale ay dashboardkiisu soo baxayaa. marka settingkiisu xitaa aad uma sii maxay ahayday waana free oo wax lacagaya wax noocaas maxay ahayday uma baahna. waana full function weeyaan. magaciisa nada aragtaa Malwarebytes. kolley intiina PC-ga aad u isticmaasho garanaysaa. waana application aad runtii aan la dhacay oo imika waxyaabo badan baa jiro viruska iyo malwareska iyo aad bay kusoo badanayaan adduunyada. marka waa application idaan fiici doono runtii. settingkiisu wax saasi badan maaha. scanning oo habka wuxuu iskaan galeynaya scan after reboot buu ku leeyahay. markuu maxay ahayday mobilka isbaktiyo soo daaro markaste scan the whole system after device. dhammaan systemka oo dhan buu scanning ku sameynayaa markuu mobilka isbaktiyo soo daaraba. scan after update markastuu updating uu sameeyo updating database uu sameeyo scan buu ku sameynaya iyadana. check wall scan yani waa jadwalka scanka. ma habeen kastaad rabtaa inuu scan gareeyo, ma maalin kastaad rabtaa inuu scan gareeyo, ma bishii baad rabtaa inuu mar scan gareeyo. qaab noocaas weeyaan. check wallkana waa kan scan frequency waa kan weekly baad doonaysaa mise daily. ana kugula talinaya inaad daily ka dhigto, waayo maalin kasta waxbaad dejinaysaa. haddaad internetka aad u isticmaasho maalin kasta waxbaa kusoo gelaya, waxbaad dirsanaysaa. marka yani waxyaabaha mobilka systemkaaga soo gelaya aad bay u tira badan. marka weekly haddaad iska tahay qof weyn oo maxay ahayday aan in badan mobilka wax dirsan ama internet isticmaal ama wax noocaas weekly ka dhigo. laakiin qof haddaad tahay dhalinyaro oo in badan wax ka dejinaya netka ama meelaha daily ka dhig, waayo maalin kasta wuxuu soo kala scan buu sameynayaa. block noo ka dhigaya wixii virus soo kala mobilkaaga. tanna waa waqtiga aad scanka aad doonayso inuu bilaabo. marka inta badan waxay ku fiican tahay inaad ka dhigato xilliga habeenkii adoo hurday inuu scan sameeyo ayay ku fiican tahay inaad ka dhigto, waayo maalintii waxa laga yaabaa inaad hawlo ku qabsato oo deetana scankiisu xoogaa culays mobilka la dhigo. iminka hadda ani waxay taagan 2:00 habeenimo, waayo 2:00 habeenimo anaa ka dhigtay, waayo anu wax 12 habeenimo waxaa 2:00 habeenimo waxa ma qabanayo. mobilkuna iska yaala dabka ku jira, marka isaga scan gareynaya subaxii isagoo wixii yani result ay ugu tagaysaa. marka laakiin haddaad 10 saacadood ka dhigan kartaa anyway xilliga doonaysid ka dhigan karaysaa.
notificationka xaggana waa kan xagga notification icon baa ugu horeysa oo xagga yar sare usoo dhig haddaad aragtaa qaybta notificationka malwarebytes anti malware baa ku taala tan ka qaado xaggii sare waxba ma yaalaan marka waad furan karaysaa haddaad doonayso show notification one is chocolate scan is started marka scanku bilowdo xagga yar sare soo dhig buu leeyahay oo tirada iyo qaabka processku uu wado ayaad xaggaa sare ka arki karaysaa scan result show notification one no malware is found qaybta notificationka soo dhig weeyaan markaan wax malware ayna jirin malwarena waxa weeyaan waa malicious software weeyaan waa software noocu doono ahaado hadduu waa virusku inkastoo malware ka yimidiyey oo waxooda malware la isku yiraahdo wax kasta oo malware ba dhamaanteed isku yiraahdaa marka wixii soo gala mobilkaaga xagga yar sare ay ku tus weeyaan marka aanay waxba jirin hadday wax waan inoo jirta ama riskiyana ii sheeg database updates weeyaan show notification one database update is happening markuu yacni isagu databasekiisa updating ka dhigo tusoo ii sheeg weeyaan qaybta hoosena waa show issues notification markay arrimo jiraan yacni virus oo soo galay ama mobilkaaga oo vulnerable ama yacni waxyaabaha nooca lamid oo kale ah notificationka iigu sheeg weeyaan iyo goysii qaybtana waa languageka aad ka dhiganayso waxaasoo languageka kaa doonta ka dhiganaysa laakiin english kale soomaali baa english baad ka dhiganaysaa help us anonymously yacni si anonymous waxaa la yidhaahdaa qaab qarsoon weeyaan oo aan cid kale ogaanin marka taas macno weyn samayn mayso marka qaab noocaas ayuu soo baxayaa fixing iminka aniga wuxuu ii sheegayaa laba wax baa jira marka aniga ayaa furtay hadda installing apps from unknown source buu leeyahay waa applicationka yacni mobilka waxaa taqaanaa in markaad application install garaynaysa in la furto unknown source meel la yidhaahdo oo meelaha aan la aqoon ee wax laga soo dirsado taasoo macnaheedu yahay wixii aanu Google Play Store laga soo dirin mobilka wuxuu aqoonsayay unknown inay yihiin meel ka yimaadeen ma yaqaano inta badan qof kasta oo furanta marka qofkii riskiga qaadi karaya marka hore wuxuu sheegayaa qofkii riskiga qaadi karaya furan karaya laakiin ani way furantay development mode by furan labadaas waa iska marka si loo eego dayaan qofku aqoon badan lahayn waa riski laakiin ana wana furtay real time protection on buu yahay hadda marka applicationkaas inuu aad iyo aad doono rajeynaya applicationkana ma antivirus iyo anti trojan iyo anti ransomware iyo waxa maaha waa anti malware weeyaan all waxa malicious softwareska maxay ama harmful softwareska yacni mobilka ku keena dhibaatada daatada xada ku basaasa waxyaabahaas oo dhan ka hortaga marka inuu aad iyo aad doono rajeynaya hadda channelka cusub tahay subscribe ku samee videoga like saar asxaabtaadana la wadaag wixii commentiya wixii aad qabtay fikir ama su'aalana qaybta commentiga ku dhaaf farxaan dalba السلام عليكم هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب